haakarkan muslimka ah wuxuu la baxay lacaga gaaraya 3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Bangiyo badan oo kuwa adduunka ah ayuu kala baxay oo ay ka mid yihiin bangiyada Israa'iil. Kadibna lacagahaas wuxuu ku taageeray qoysas badan oo tabaalaysan oo ay ka mid yihiin kuwa reer Falastiin ah. Dawladuhu badan waxay ku dagaalamaan hub iyo ciidan, qaarkoodna waxay ku dagaalamaan dhaqaale iyo cunaqabatayn. Dagaalkan aan maanta ka hadlaynaa wuxuu ku bilowday kuna dhamaaday laptop. Hadda waa laptopkan adiga guriga ku yaal oo aad u haysatid inaad filimaan ku daawatid. Laptopku wuxuu ka qayb qaataa dagaalada ugu awoodda badan adduunka oo hadda loo yaqaano dagaalada qarsoon. Waxaan ahay Mubaarak, halkanina waa waayaha dunida. Ku soo dhawaada barnaamij cusub oo xiiso leh. Marka hore muuqaalka like saar, sii share garay, page-kana follow dheh. Wiilkan dhalinyarada ah oo lagu magacaabo Hamza bin Talaaj. Hamza wuxuu 1988 ku dhashay dalka Algeria. Hamza ma uusan ahayn ilmaha caadiga ah marka ay ilmuhu jidka bunariga ku soo dheelayaan. Asaga wuxuu ku falaadi jiray TV-yada, laptop-yada, shay walba intuu furfuro wuxuu ogaa jiray waxa uu ka samaysan yahay shayga asalkiisu iyo qaabka uu u samaysan yahay. Kadibna waa uu xirxiri jiray oo sidiisi ayuu ka dhigi jiray. Laakiin qoyska uu ka dhashay Hamza waxay u haysteen cunug yar oo fuduuli ah, iska falaad badan, dhib badan. Maankooda marna ma aysan gelin inay arrinta wiilkoodu gaari doonto FBI-da Mareykanka, Interpolka adduunkuna ay baadigoobi doonaan. Hamza falaadkiisu wuxuu gaaray heer dariska markii shay elektarooni ah uu ka soo halaabo ay u keensadaan oo dhahaan Hamza noo hagaaji. asaguna asbuuc iyo 2 asbuuc intuu haysto oo fiirfiiriyo shayga furfuro asalkiisa waxa uu ka samaysan yahay markuu ogaado intuu isku xirxiro haddii ay wax ka maqan yihiin shay asagoo kale ah ayuu ka soo furi jiray waxa ka maqan waa uu hagaaji jiray. Kadibna dariska ayuu ku wareeji jiray. Hamza markii uu 10 sano jirayba wuxuu lahaa kombiyuutar asaga u gaar ah. mar walba kombiyuutarkiisa ayuu ku falaadi jiray. kombiyuutarkiisa ayuu bara jiray nidaamyada amniga, nidaamyada software-ka. liis walba oo software ah gudaha ayuu u geli jiray, waa uu baari jiray ilaa uu kombiyuutarkii oo dhan fahmay. waxaan dhihi karnaa laptopkii oo dhan waa uu koobiyeeyay. koobi ayuu dhahay xogta ku jirtay laptopka. Kadibna maskaxdiisa ayuu baasti ku dhahday. asagoo yar ayuuna kashifay oo ogaaday xog walba oo kombiyuutarka ku jirta. waxa uuna si gaar ah uga bartay dhinacyada amniga ama cyber security-ga. sidoo kalena wuxuu gaaray darajada tahkiirka ama haakarnimada. haakarnimadu waa inaad u dhici kartid xogaha sirdoonka, xogaha bangiyada, waa inaad jabsan kartid oo u dhici kartid. asagu isuma uusan arkin inuu yahay haakar, laakiin wuxuu ogaa inuu cilmigan aad ugu xeel dheeraaday. dhowr tijaabo oo uu sameeyeyna waa uu ku guulaystay. Hamza wuxuu la xiriiray shirkado iyo bangiyo badan, waxaana ka codsaday inay shaqo siiyaan oo uu amnigooda ilaaliyo, waxyaalaha amnigooda lidiga ku ahna uu ka difaaci doono. shirkado badan ayaana qaatay wiilkan dhalinyarada, shaqaaleysiiyey $10,000 ayayna mushaarkiisa ka dhigeen. Hamza isagoo shaqooyinkaas ku guda jira sanadii 2006 ayuu jaamacad ku biiray. jaamacaddana waxa uu ka baranayay cilmiga xisaabaadka, halka ardayda asaga ku fasalka ah ay waxyaabaha aasaasiga xoogga saarayeen. Hamza ardada dhowr sano ayuu ka sii horeeyay, kaalin walbana kaalinta ugu horeyda ayuu ka geli jiray, asagoo sidoo kalena shirkado u shaqaynaya oo $10,000 qaadanaya. Hamza isagoo xaaladaas ku jira markiisii ugu horreeyay wuxuu tijaabiyey khibradiisii haakarnimo. Hamza wuxuu helay xogta bangi Faransiis ah oo sheegaya inay aad u nugul yihiin, dhowr marna weerar lagu soo qaaday, sidoo kalena ay u baahan yihiin qof ka difaaca. bangiga ayuu la xiriiray, waxaana uu sheegay inuu ka xiri doono oo ka difaaci doono qoladaas. lacag yar oo $1,000 iyo $2,000 ayuuna weydiistay. laakiin markii bangigaas loo ogolaaday wuxuu arkay lacagaha aadka u fara badan ee bangiga yaala. Hamza damac ayaa galay. lacaga aad u fara badan ayuu bangigii kala baxay, laakiin ma uusan dhigin isla Faransiiska ee akoon kale oo ka furtay wadanka Thailand ayuu lacagihii ku shubtay. Hamza tilaabadiisii koobaad ee haakirnimo waa uu tijaabiyey, waana uu ku guulaystay. lacaga aad u fara badan ayuuna helay, laakiin cid ogaatay ma leh. subaxii markii bangigii la furay waxay ku waabaristeen dad badan oo albaabadii bangiga taagan, dad badan oo markii akoonadooda ay gudaha u galeen arkay in lacaga aad u fara badan lagala baxay. kuwa dhahaya $500,000 ayaa iga maqane, lacagtayda hal ay siiyo, lacagtayda halkii ayaad geyseen. bangigii oo dacwo ku furan tahay ayuu waagu u baryay. laakiin haakarkan wax caddayn ah iyo wax dabagal ah ma uusan reebin. Hamza si uu sii ballaariyo khibradiisa haakarnimo wuxuu helay haakar kale oo u dhashay dalka Russia, waxayna labadoodu ku heshiiyeen inay wada hawl galaan, khibradoodana ay ballaariyaan, bangiyada adduunka oo dhan ay u dhacaan, lacagana ay kala baxaan. waxay ku heshiiyeen marka labadan haakar inay isticmaalaan fayrus lagu magacaabo SBI. waa fayrus ku dhex dhunta akoonada, xada xogta, sidoo kalena si fudud lacagaha ula baxa. haakariskaas ayagoo isticmaalaya fayruskan waxay u dhaceen in ka badan 200 oo bangi. lacagihii ay bangiyaasha adduunku qasaareen Hamza iyo haakarka Russianka sababtiisana waxay gaartay
3 bilyan iyo 400 oo milyan oo dollar. raggan markay lacagta intaas la eg xadeen waxay noqdeen hackers caalami ah. Interpol, FBI-da Mareykanka dhammaan ay booliska adduunka oo dhan ku daba jiraan, meel walba laga raadinayo. Xamse sanadii 2013 asaga iyo qoyskiisuba waxay u safreen waddanka Thailand oo ah halkii uu lacagaha dhiga jiray. Thailand markuu tagay wuxuu bilaabay inuu iska dalxiiso, asaga iyo qoyskiisu inay iska baashaalaan, iskaga raaxaystaan lacagihii uu kala soo baxay bangiyada adduunka. in muddo ah markii uu deganaa Thailand ku dalxiisay, ku baashaalayay, maalmaha kamid ah kaarkiisa ayuu soo qaatay, bankiga ayuu imaaday inuu lacag la baxo ayuu rabay. laakiin maalinkaas waxaa sawirtay kaamiradii sarifka. Interpolka adduunkuna maalinkaas wejigiisa ayay heleen maadaama hore looga shakiyay ninkan bangiyaal caalami ah oo aad loo ilaaliyo ayuu lacag kala baxay. sawirkiisii iyo hawiyadiisii iyo qaabkiisii oo dhan ayaa la daabacday, waxaana loo qaybiyay Interpolka iyo FBI-da Mareykanka. intaas wixii ka dambeeyana maskiinkan dabagal ayaa lagu hayay, meel walba oo uu tilaab dhigo iyo dhaqaaqiisa oo dhan ayaa lala socday. Xamse waxaas asagoo waxba kama oga, wuu iska raaxaysanayaa, wuu iska dalxiisayaa. muddo kadib wuxuu go'aansaday Xamse inuu u laabto dalkiisii Algeria, laakiin ma oga in lagu daba jiro oo meel walba oo cagta dhigaba lala dhigayo. boorsadiisa ayuu soo qaatay. markii uu garoonka diyaaradaha imaadayba booliska Thailand ayaa qabteen Xamse. boolisku markay u yimaadeen maba uusan iswaaleen, gacmaha ayuu dhiibtay asagoo qoslaya, wuxuuna yiri ixira. waxaana laga qaaday sawirkan caanka noqday asagoo faraxsan oo qoslaya. boolisku aad ayay ula yaabeen ninkan. Interpolka ayaana gacanta loo geliyay. ninkan diyaarad ayaa la saaray, waxaana laga dejiyay America. wuxuu ka soo muuqday maxkamad ku taala dalka Mareykanka asagoo la maxkamadeynayo. maxkamadiisa kadibna waxa lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah. markii ninkan la xukumay, dadka qaarkood waxay dhaheen war ninkan hal la dilo, lacagaheennii oo dhan ayuu qabaa. qaarkood waxay leeyihiin xabsiga loo dheereeyo. dadka qaarkoodna waxay yiraahdeen war ninkan hal la amaal mariyo oo la iska fasaxo, maadaama ninkan lacagaha uu bangiyaasha adduunka ka qaato uusan kaligiis isticmaali jirin. ninkan wuxuu ku taageeri jiray lacagahaas asagoo aysan cidna ogeyn. ninkan lacagaha intooda badan wuxuu ku taageeri jiray hay-ado iyo ururo caalami ah, waxaana loo qaybi jiray dad tabaalaysan, dad dulman oo masaakiin ah oo ay ka mid ahaayeen qoysas badan oo reer Falastiin ah. dadka qaarkiis ninkan waxayba u haysteen inuu yahay nin samafala ah oo aad u wanaagsan. ninkan xabsiga ayaa la geliyay markii uu 11 sano oo kaliya ku jiray. ninkan waxaa laga helay sawirkan asagoo diyaarad saaran, iska raaxaysanaya oo u sii socda dalkiisii Algeria. dad badan waxay aaminsan yihiin ninkan inuu saacideeyay sawirkii laga soo qaaday markii la qabanayay asagoo faraxsan oo qoslaya in gacmaha laga xiray, sidaasna ay boolisku ku qabteen. muuqaalka like saara, sii share gareey oo meel dheer gaarsiiya.